الصومال الشهيدة الأول العام طالب شرطة عمر حسن أحمد. waxaa garoonka kooxda Mariiqa oo dhaca caasimadii hore ee Suudaan Undurmaan lagu qabtay munaasabad ballaaran oo tababar lagu soo xiriyay dhalinyaro baratay leelo saraakiil oo muddo 2 sano iyo 3 bil tababar ugu socday dalkan Suudaan iyagoo bartay sharciga qaanuunka. munaasabada tababarka lagu soo xiriyay leelo saraakiisha ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan Axmed al-Bashir, taliyaha ciidanka booliska Suudaan, wasiirka arrimaha gudaha, qaar ka mid ah safiirada caalamka oo fadhiya Suudaan, siyaaya safaarada Soomaaliya ee ku leedahay dalkan Suudaan Axmed Ibrahim Buurfole iyo waliba kumanaan ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan. madaxweynaha Suudaan Umar Xasan Axmed al-Bashir ayaa markii uu goobta soo gaaray salaan sharaf ka qaatay ciidamada. leelo saraakiisha ee tababarka loo soo xiray ayaa ka kala socday dawladaha Soomaaliya, Suudaan iyo Urdun, iyadoona ay soo bandhigeen dhowlatus aad u qurux badan ka oo ila dhaceen shacabkii faraha badnaa ee u soo daabasho tagay. sidoo kale leelo saraakiisha ee tababarka u soo idlaaday ayaa goobta lagu dhaariyay iyagoona ku dhaartay inay si daacad ah u adeegi doonaan shacabkooda. أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة. عمر حسن أحمد oo ka socday Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana qayb ka ah saraakiisha tababarka loo soo xiray ayaa galay kaalinta koowaad muddadii uu socday tababarkaasi, iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Suudaan Umar Xasan Axmed al-Bashir uu gudoonsiyay bilad sharaf guuleystaha kaalinta koowaad galay ee Umar Xasan Axmed. sidoo kale Umar Xasan Axmed ayaa hormuud ka ahaa salaan sharaftii halkaasi lagu siinayay madaxweynaha Suudaan Umar al-Bashir. intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa hadal kooban ka jeediyay goobta wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Suudaan, isagoo saraakiisha ku booriyay mar walba dantooda ay ka horumariyaan danta dadkooda. wasiirka ayaa sidoo kale ku ammaanay leelo saraakiisha dhabaraadeega ay la yimaadeen inta uu tababarka socday. dowladda Suudaan ayaa waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ka taageera dhanka ciidanka, iyadoo sanad walba xilligan oo kale dalka Suudaan ka qabanjiyeen saraakiil qayb ka noqda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Yusuf Maxamed Macali Kashmiir, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan.